وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا كدب ولا ليال إلهي بان مهضله سبحانه، شرف iyo majdi iyo xoog wax u weyn oo salawaadkii iyo zakawaadkii waxa u sugan tahay sidoo sheekheenu sheegay awaale xabiibkeeni rasuulkeeni Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo ah macallinkii nolosha ina baray teeda gaarka ah iyo teeda guudbaba. markaas waxaan iska galaynaa mawduuceena ku saabsan waxa loo yaqaano as-saada az-zawjiyya. السعادة الزوجية ومحي waxay ka dhigan tahay booneerka familiyalka labada qof ee wada nool kuma jiraan maanta dhan ubadku kuma jiraan waalidada labada isqabta dhashay amba idada u ah amba habareerta u ah. waxaan ka hadlaynaa labada ruux ee wada nool sida ay iskugu raaxaynayaan. marka waxaan ka hadli doonaa mawduuc la yiraahdo as-saadatu az-zawjiyya amba la yiraahdo labada qof ee wada nool dhex fadhido guri siday isku raali gelinayaan. waxaan ka hadlaynaa muwaayaaga wasaaisha dariiqyada jidadka loo mari karo laba ruuxi siday isku raali gelin lahaayeen oo kama soo qaadanayno nidaam kale gaalo ma aadayno dhaqan kale ma aadayno. waxaan aadaynaa laba shay oo ilaahay inoo galladaystay annaka qof kalena uunan haysan adduunka. labadaasi waxa weeye kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. labadaas baan la noolaanaynaa. waxay culimadu ka yiraahdeen, waxay aqoonyahanku ka yiraahdeen, waxay dadka caqliga leh ka yiraahdeen, iyadana waan adeegsanaynaa insha Allah taala. markaas taasi waa koobaad. arinta labaad ee jecelahay waxa weeyaan waxaan iga yiri waxyaalada qaar kood waan isku dhaafaynaa. arin saddexaad waxaan jecelahay inaan isxasuusino arin ah marka aan ka hadlayno laba meelood baan ku dhageysanaynaa warkeena. maskaxda waan ku dhageysanaynaa li'anna halka wax weelaysa waa caqliga, meel kalena waan ku dhageysanaynaa waa qalbiga. dadka bila qalbigi dad maaha, dad bila caatifa naxariis lahayn jajabnayn adag sida rag u badan yihiin. waan iskritikeenna marna raggan weerarayna marna dumarka, raggan mar runta u sheegayna marna dumarka runta u sheegayna, marna waan u garqaadayna shariicadeenu siday ka tiri baan sheegayna. mushkilad male. waxaan kale oo rabnaa inaan adeegsano marka afraad arinta ah in aan garanno sacaadadu iyo wanaagu iyo quruxdu inayna ahayn ideal misaal maaha, wax naga sarreysa maaha, noloshay ka mid tahay. in la iskhilaafo kama soo horjeedo sacaadada, booneerka kama soo horjeedo. in la isku xanaaqo booneerka kama soo horjeedo. in la kala dudo booneerka kama soo horjeedo. in la isyeeradiido booneer in la kala aamuso ayaamo booneerka kama soo horjeedo. su'aal baan isweydiinaa, sacaado maxaa la yiraahdaa? booneer muxuu yahay? raaxo maxaa la yiraahdaa? qofku goormuu dareemaa inuu raaxaysanayo? goortee iyuu dareemaa? maa hiya sacaada? culimadu marka ay daba gureen quraanka iyo xadiiskeena nabigeena sallallahu alayhi wasallam laga wariyay waxay yiraahdeen sacaadadu waxa weeye booneerku tuma'niinada weeye, waa qofka xasiloon oo mushkilaadku ayna gilgilin. isaga hadduu xanuusto iyo hadduu caafimaad qabo waa isku mid. hadduu maanta noloshu ka khadhaadho iyo hadday wax u kordhaan waa isku mid. waa mutma'in uu xasiloon yahay. xasiloonida ayay yidhaahdeen culimmada qaarkood taabaa sacaado la yidhahdaa. booneerku waa taa, waa qof xasiloon. qofka xasiloon nin la yidhaahdo daariq suweydaan oo reer kuweyd oo arrimahan dabagura wuxuu yidhi kama dhigno inaad doqon noqotid ama doqonad sida dad fara badan u fahansan yihiin. kama dhigno in aad is-ilowsiisid dhibaatada, kama dhigno. laakiin waxay ka dhigan tahay in adoo dhibaatadii xalinaya haddana aad ahaatid qof degan oo xasiloon. ilaahay baa yidhi alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub. xuska ilaahay quluubta ayaa ku xasisha buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala. culimo kale waxay yidhahdeen sacaadadu waxa weeye booneerku waxaa la yidhaahdaa alraaxatu alqalbiyatu aldaakhiliyatu alcamiiqa
وقفك أو جودهيسا ما هجركيسا ما هبابوركيسا ما هجوريسا ما هدرك أوسيتو وقفك أو جودها كدراميا إن الراحي سنيو وليبا ميل فوق كالراحي سنيا ما هم ميل دو أو لجاري كرو ميل هوجا أو جنأ أيو كالراحي سنيا واتي ابن تيمية لجسوري وحويري سوى حبسك كجرا أيوري قلب جيجو إيا جنة إيدا إيا إيمان كيجو قلبي كجران إيا صاري كريا قف إيجا صاري كريا مجرو هدان الله يحرو والراحي سنيا هدان العقهلو والراحي سنيا هدان جاجودو والراحي سنيا هدان درجو والراحي سنيا هدان عافمد بالكيد كالراحي سنيا وحوري وقلبك وميل فوق وقف بني آدم وجاري كريم إذا راحة رنتي وتاوي سدانا والد هذا علوم دينه الرئيس الضحات سعادة محال هذا وحال هذا التوافق مع الطبيعة قفك أو ناتيرك أقبلا أو لنول هذا سدو إلهي وحقو تلقى لأنول هذا أو نساق إيا ناتيرك يسكور إيمان لا بقى في نوقف النقطة معها إن كونك إلهي معابدية أن إلهي يكور منين كونك النظام سيهي أدوك فوضها النقنين كونك تاني وحو إلهي كسليي إنه كسعود انسجام إنه إسلام الصعود أدوك هكذا السعونين مركا محيل هذا علومه وحوي سعادته والتوافق وقفك إسوافقا كونك نوافقا سدابر هذا سعادة أرنت أفراد قدام بيس سعادة أنك بحينا بونيركي محويها وحيل هذا علومه قاركود سعادته وحوي وأرنت صوصعتها وحاجرت السعادة مؤقتة هي سعادة أبدية قف كنا الوقت ير بونير يقف وقت والبا بونير كنول راحة كنول لبدا وإنا كلا سارني لهذين مثلا قف باربا إن دياريو شهادو صرع دي ماجستير دكتوراه إنو قاتور ربا انت دبس صعدو وداليا أيانتا قعنت اللي سوقليو وراحيسن دي إر بأوصو بيرته دكتور بأوصو بيرته وراحيسن يا لكن هو مؤقت لح بلو تضوب بلو سند عادي ويسكن نقوله ويلوبيا نبى دونيا إنه منصب جارو وزير إنه نقضه دكتور إنه نقضه مامور إنه لودي والشركة إنه سمايو أنت ودبس صعد ودالي مركو قعنت كله وراحيسن لكن بعد لو بلاد وجاري انتهى وين ماتي مركا تاو حدا وسعادة ورن وبونير قفكو راحيسن يا وفرحسن ياهي ومؤقت سعادة كلا وحدا وسعادة أبدية قفكني وليجيب السعادة كجرا وقفك وقفك هدف كيس فوقيه آخر كحرم وقفك أركي جنة ما يشوف قليو مركو آخرنا القرآن لهم فيها ما يشاءون جنة وحي دونان بكليهن وهم فيها خالدون ويكواريان جنة فيما اشتهت waxay naftoodu jeceshahay dhan bay helayaan jannada ilaahay bay arkayaan jannada nabi maxamed bay la joogan sallallahu alayhi wa sallam jannada markuu ku noolaado saadada marka uu soo dhaadhiyo qalbigiisa galiyo saacad walba uu ku nool yahay abadi bay noqonaysaa walidalika saadada muaqqadki haday u shaqeyn weeyda saadada abadiga ah qofka bini aadanka waxa ku badan sadamaadka dhibaatooyinka ku badan uu raaxaysan wixii uu dhamayn wax kale uu garab caraabi hadana dhibaato kale uu galay dhibaato saddexaad buu galay sidoo sadamaad feer ugu jiro ay dhamaan walidalika waxa la dhahdaa qofka saciidka xaqiiqiga waa qofka saadadiisa adduunka ku xidha saadadiisa aakhirada ilaahay muxuu faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz allah ba sidaayay qofka cadaabta laga weeciyo ee laga badbaadiyo ee janno la aadsiiyo ayaa liibaanay buu ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaba raaxaystay kaaba liibaanay idan saadadu waa taa walaalayaal سؤال لبعض ما كجوابينا سعادة الزوجية والأمم وسعادة عام كهيد بونيركي جودوي سؤال شاء الله بعد وحوية مذاهب الناس في السعادة ذاتك سدي سعادة وأركان بل بيقول في رسالتك قف باكله سعادة ومركز إمك الجورنال هذا رجال بيتك خسرنا أم بإيدرا أم بالتلفزيون كا أن هرفدنا وسائل الإعلام كا ورباهين أن هرفدنا محل أرجنا سدي التصويران سعادة قرر محل تصويرتها وحي تصويران قضي يا إسلام لبع عياله لبدا عياله وحويان كل واحد كده ويل يا جواد قعماي هيان بدي جوجان ويرديان ويدولا يعني وبونير بيكونوا ليهين marka baan orana wallahi waa taa way ku taswiirayaan qaar kale saadada maxay ka taswiiraan si kale u sawiraan saadada waxay u sawiraan waa kuwa waa maadiintii waa dunyawiintii saadada markay sawirayaan waxay ka sawiraan qofkii oo baabuur wata islaanta ay garab fadhido laba ciyaal halka dambe ugu joogan ayna halka dambe fadhiyo
aynaha gadan fadhiyo markaas buu bawr ku jiraa waa sacaado weeyaan wuxuu u dhan noloshii oo dhan saamay sacaada qaar u taswiiraan qaar saddexaad markay sacaado sawirayaan maxay u sawiraan nin karaabaad sita aad u labisan qurux badan markaa bay dhahdeen الرجل المثالي waa nin misaali cadar oo la yar gabdhiga markaas ninkaas muxuu sawirayay waa nin naajixa shirkad buu najixiyay dawlad buu najixiyay wasaarad buu najixiyay waa saciid marka dadku kaas bay wada eegayaan waa sawir sacaado laga bixiyo sacaadada qaar waxay ka dhaxarkaan maalka saadaradeed xoolahay ka dhaxarkaan sidii qaaruun oo kale xoolaha laga dhaxarkaa waad arkaysaa uu daba socdaa uu daba caraabaya uu ka daba dhacaya salaada iloo siinaysa xashka iloo siinaysa sakada iloo siinaysa uu ururinaya meel kasto u maraya sacaadada halkaas uu ka arkaya walidaalika nin la oran jiray Abdul Wahhab waa taqaanin dadka afka carabiga yaqaano oo shanteer weyn oo Egyptian ahaa waxa uu hoos joogsaday maalimaha kamida baandarad weyn cimaarad weyn oo qaahira ku taala wuxuu yiri iyaa iga qaada wax walba hatta sixa oo cimaarad inta lagu nisiya waa raaxaysan lahaa waxa ninkii waa nin heesaha aad albuumiyu sameeyay waa la jeclaa waqtiga Kaltuum baahed ninkii wuxuu helay lacag uu dhistay cimaaradii markuu cimaaradii dhameeyay kansarka dhiiga ku dhacay wanta hal amr uu dhamaaday waa dhakhtarka loogu yimid waxa la ka waran cimaaradii waad heshay lacagna waad heshay ka waran imika wuxuu yiri iga qaada kansarka caafimaadkiisa u cisha hadiya saada marka dad fara badan saacada maxay warkaan inay maalka tahay inay lacagta tahay diyaarad baan iibsan lahaa markab yar baan iibsan lahaa heejadahan tagi lahaa badahan ku mari lahaa islaanta yar qaadan lahaa kullu saaxiibadii ba qaadan lahaa rag weeyaan dumarkuna saas oo kale marka saas saacadu warkayaaba saacada hadii hiya bacdhum qaar kale saacada waxay warkaan inay tahay jaa inuu qofku madax noqdo oo maaratay madaxweyne noqdo boqor noqdo wasiir noqdo director noqdo uu ka soo jeesto meel oo maaratay la agyaaco markuu soo baxay la wada aamuso oo maaratay la arko hadii saacada saas u arkaa laakiin taasina waxaan weydiinaa boqorkii shaaha Iran sodoneeyo sano soo xukumay Iran uu dhargay boqor buu ah Iran buu xukumay batroolkeega xoolaheega wixiga muddo yar baa laga joojiyay qaahiru ku dhintay wad garanaysiin dadkii soo zeeranay waxay ka yiraahdeen intii aad madax ahayd sacaado ma dareentay pooneer ma dareentay wuxuu yiri ma dhadhamina ma dareen maaha ayaana ma arag wax sacaado pooneer dhado intaan ahaa boqorka imikana boqornimadii waayo oo ma ka sii daray buuri marka haadihi saacadada qaarka jaaha ka dhaxarkaya sultaanka qor kale magacay ka dhaxarkaan inuu qofku magac yeesho oo la daba yaac markuu soo baxayo boqol maartay wax sir ku dhaca dadka maartay nujuumta ah xidigaha ah markay baxayaan markay meel marayaan haduu yahay najmi siyaasiya haduu yahay najmi dhaqaale haduu yahay najmi fan haduu yahay najmi kubadeed haduu yahay najmi maartay diineed wuxuu doonay hado bimujarrad uu baxayo boqol baa daba yaacaysa baaburaa way taswiirayaan way daba ordayaan shuhradda bay qaarmoodaan inay saacada tahay holiyood baa la ziyaartay waxa ziyaaratay majallad ingiriiska ka soo baxda waxay weydiisay su'aal ma su'aadaatihiin mise waxa tihiin bu'asa ma raaxaysataan inikoo holiyoodkiya adduunko dhan in daawado oo aflaantu sameeya oo ni laga sheekeeyo mise waad murugoysantihiin noloshiinu waa sidee waxay ku jawaabeen boqolkiiba 95 ma arag wax la yiraahdo pooneer boqolkiiba 95 waa diraaso economist ay samaysay oo ay ka samaysay dadka Hollywood fadhiya ee adduunka loogu yaqaano qaar kale waxa u yaqaanaan sacaadada inuu qofku adduunka iska tago uu ilaahay u sii jeesto uu miskiidka fadhiisto uu iska gaajoodo sidii madhabkii dadka zaahidiinta ah oo ilaahay u caabudo oo quraanka akhriyo oo salaatuleelka tukado oo markuu adduunyo maqlo dhagaha ka laabto iyadana sacaado may tahay waxa dhacda iyaduna waa sacaadadii muaqadka ah tiruuta maaha laguma oran jirkaaga cadaab nabiga ay noo sheegi doona sallallahu alayhi wasallam inay sacaado bada tahay taasi oo sacaado kale ay ka maqan tahay lianna waa la dareema waxa arki doona ibn al-qayyim dadka guurka ka tagay ee guurka yiri kuma raaxaysanaa waxaan ku raaxaysanaa miskiidka inta ka maqan ibn al-qayyim bay noo sheegi doona laakiin kuwa hore raaxa ka badan bay haystaan maadaama ay samada ku xiran yihiin inta waxaan kaga soo baxaynaa madaahibu naasi fi sacaada madhabkeena islaamka sacaadada waan sheegay hadda waa intii hore dhan culumadii aan sheegay kuwii qalbiga yiri kuwii yiri maartay waa qofka dabeecadda hela kuwii yiri maartay waa qofka raaxaysta dumaanina qalbiga dareema waxa arki doona ibn al-qayyim dadka guurka ka tagay ee guurka yiri kuma raaxaysanaa waxaan ku raaxaysanaa miskiidka inta ka maqan ibn al-qayyim bay noo sheegi doona laakiin kuwa hore raaxa ka badan bay haystaan maadaama ay samada ku xiran yihiin inta waxaan kaga soo baxaynaa madaahibu naasi fi sacaada
madhabkeenna islaamka sacaadada waan sheegay hadda waa intii hore dhan culumadii aan sheegay kuwii qalbiga yidhi kuwii yidhi maaragtay waa qofkoo dabeecadda hela kuwii yidhi maaragtay waa qofkoo raaxaysta dumaanina qalbiya hela kuwaabayaan madhabkeenna iyo shareecadeenna iyo diinteennu waxay sacaadada ka qabto waxaanu imanaynaa maxaan uga jeednaa sacaada sawjiya booneerka familiyaalka maxaan uga jeednaa waxaan uga jeednaa waxa soo socda kow maa hiya sacaada zawjiya sacaada waa booneer halkee laga dareemaa qalbiga labada qof ee wada nool ma qalbi wada nool baa mise waa jir wada nool su-aashaan ka jawaabayna si aan u garanno labada qof ee guriga wada joogaayey ma jirkooga unbaa wada joogaa mise qalbigoogaa wada joogta waxaa inooga jawaabaysaa majalatu lmujtamac majalada dhahdo oo kuweyd ka soo baxda cadad soo baxay 1985 imika maaha waa ka taqabansan waa waqti fog weeyaan 85kii cadadka majalatu lmujtamac waxaa lagu qoray khaliijka diraasad lagu sameeyey dadka guryaha jooga ma jirkoogaa wada jooga mise qalbigoogaa wada jooga joornaalka waxay tiri dadka khaliijka ku nool dumar iyo rag waxa wada nool jirkooga 75% boqolkiiba 25 baa yidhi qalbigayga odagayga la jooga amba islaantu tiri amba odaygu yidhi qalbigayga islaantii la jooga laakiin jirka isla jooga maxaa u maraga bay inuu jirku isla joogo inuu jirku wada joogo maxaa ka maraga waxaa la yidhi khilaaf yar oo basiida hadduu dhaco wuxuu keenaa gurigu inuu dumo imisa boqolkiiba 45 alkhilaafaat albasiida khilaafaadka yaryar ee guryaha ka dhaca boqolkiiba 45 guryaha way dumiyaan goormay dumiyaan baa la isweydiiyey waxay dumiyaan 3 sano ee ugu horeysa guriga asaaskiisa waxaa la ogaaday hadday dadku 3 sano ugu horeysa dhaafaan mawduuca haddaan insha allah isku soo noqono markaan ka hadlayno mashaakilkan aad u geli doonaaye hadday dhaafaan 3 sano way sii jiraan baa la yidhi marka macnaha idan waxa weeye sacaada zawjiya waxay ka dhigan tahay markaan ka dhaqaaqno diraasada laba qalbi oo wada nool oo guriga fadhiya oo isdareemaya quluubtoodu isdareemayso ihsaas ay leedahay siduu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam nabigu muxuu ka yiri caasha buu yiri ugu fiirsan xadiis cajiiba bukhari muslim baa warinaya caasha buu yiri anigu waan gartaa ayaantaad careysan tahay waanan gartaa ayaanta aad faraxsan tahay way fajacay caasha sidaad ku garataa bay tiri qalbigaygu aaday maaha jirkiyga wuxuu aaday gunteedu ku dhex jiraa waxay tiri sidaad ku garataa wuxuu yiri waxaan ku gartaa ayaantaad faraxsan tahay markaad dhaaranaysid waxaad tiraahdaa rabbi muhammad nabi muhammad ilaahi abuuraan ku dhaartay ayaantay ka fadhidana maxaad tiraahdaa nabi ibraahim ilaahiis baan ku dhaartaa tiraahdaa magacaygaas ka naxaysaa buu yiri markaa bay tiri xadiiska riwaayadda muslim waxay ku tiri wallaahi waxaan jecelahay inaan magacaaga iska daayo runta u sheegtay magacaaga oo inaan hadal qaado baan nacayaa bay tiri waa nabi muhammad magaciisa waxay nacaysaa calayhi salaatu wasalaam laakiin ma aha inay diidan tahay waa mu'minad waa ummuna waa taqiyad waa waricad وأهل الجنة أي سيدة تهي بعد خديجة وفاطمة لكن أو ما خديجة ولا برتميسا لكن سوى حويان وطبيعة الناس قلبي يقول النبي قال عليه الصلاة والسلام مركا محل وجدنا ذاتك سعادة قولي يكون المحل هو قرتا قلوب تودا إصدرانتا إحساس باجرا وحا يسكت دران ورر بيدران أي هذا ورك الله صعو ورر بيدران waad garanaysaa marka uu odaygaagu soo galo aqalka soo galo maanta ma mushidan yahay mise uu qabow yahay waad garanaysaa isaguna uu garan markuu aqalka soo galo islaantii ma lagu shidan yahay mise way qabowdahay marka ma sii shidayo uu qaboojinaya filinka iyaduna ma sii shidayso filinkii qaboojinaysa mawduuca koobaad waxa weeyaan maxaan oranay sacaadada waxa lagu gartaa waa qalbiga labo talabaad maxaa lagu gartaa sacaada zawjiya maxay kala tahay waxa jira tafaahumaad mushtaraka waxa dhacdo labada ruux ee wada nool waxa ka dhaxeeya isfaham eeg waa la isfahansan yahay waxa la iska fahansan yahay waxyaalo badan laakiin afar baan ku soo koobaynaa koow dadka diinta waa la isla fahansan yahay hadduu yiraahdo isagu ilmaha madrasada horta hangeyno suu quraanka u barto iyadoo marayso may horta han ka bilowna ilmaha yar inuu aabbeesiyada xafido waalantaa waqtigeed la nool yahay wala isku imanaya diintii baa la isla fahansan yahay caawa waa sabti waa taasuuca maan soona oo soonkaasi muxuu yahay isla ma fahansanaba marka waa in la isla yaqaano taasuuca iyo caashuura iyo carafa iyo ramadaan iyo xaj iyo cumrahan tagnayo halka la iska leeyahay kaalay maanta waxaan ku soo raaxaysanaynaa maaragtay qofka iska wastaanayana hargeysan tagnaa dirrabaan tagnaa ma waxaan tagnaa maxaan ku dhahdaa nairobi waa la yara dalacayaa ma waxaan tagnaa addis ababa waa la sii socdaa mooy qaahira beirut marka dambe shibr marka dambena paris marka dambe jasiirada waxaa la sheegaaba dee jannadu ay taallo
halkaa baan tagnaa maya su-aal kalea laga jawaabaya waxaa la leeyahay halkaa ma aha ma soo cimraysanaa waa tafaahum baa jira agga diinta ma cimraysanaa masaajidka rasuulka ma siyaaranaa sala allahu alay wasalam qabriga nebiga ma hor fadhiisanaayo ma soo salaanaa nebiga miskiidka rasuulka ma gallaa maaragtay zamzamka ma soo wada cabnaa kadibna maaragtay ma wada fadhiisanaa daaradda weyne xaramka ma ku soo qoqosallaa fi lxaram almaki ama xaram almadani ma ku soo raaxaysanaa waa tafaahum inuu jiro diini ah inuu jiro tawaafuq ijtimaaci ah labadan qofi inay isla fahmaan ninkani wuxuu ka soo jeedaa hooyo iyo aabbo iyaduna hooyo iyo aabbo guriga way soo fargelinayaan aniga aabbaha iyo hooyaday waadkiiro kulushaa waan ku arkay maaha markay soo galaan oo yar baxdaa adiga markay ani aabbahooda yimaadiin albaabkaan u furaa waa tawaafuq ijtimaaci baanan jirin waa inaan laga fikiro waalidka labada jaanibba seen u raali gelinaa xuduudooduna intay ku dhammaanaysaa leanna waa guri kale waa inaan la fahmo waalidku gurigan ma leh laa odayga waalidka odayga walaa waalidka islaanta midna guriga ma leh guriga labadiinaa leh laakiin waa inaad fahamsan tihiin inaad labadiinu imtidaad u tihiin kuwa ood ka imateen oo ilaahay naga yidhi falaa taqul lahumaa ufa ka oranina oo jeclaada oo u samafala laakiin caqli iyo caatifa waa inaad isla fahantiin sideen ugu samafallaa sideen u soo dhoweynaa sideen xuduud ugu yeellaa sidee arrimaha qaarkood ayna u fahmin sideen aqalkeennu asturaad u yeeshaa waa tafaahum ijtimaaci baa dhala saddex tafaahum ama tawaafuq maali baa jira waxyaalada sacaadada usradda keena waxaa ka mid ah inay labada qofi maalka isla fahansan yihiin lacagta seen yeellaa oo haddaad adigu tirahdid maya lacagta anuu ururinaya odaygii baa anuu waan ururinayaa caqli baan leeyahay aduu islaam baa tahay basiid baa tahay ciyaalku jaamicad baa jirta iminka tacliintu way adkaatay waa tawaafuq waxaan u baahannahay guri iyo baabuur iyo nolol baan u baahannahay waxa soo socda inaan noolaba maad garanaysaa lasma fahansano waa in istaraatiijiyada isla fahansan yahay maxaan isticmaalnaa maxaan dhignaa sideen u dhignaa maxaan samaynaa dad baa jira yidhaahda sida gaalada yidhaahda waa inaan wada yeelano waxa la idhahdo maaragtay koont quraate mishiye madaam mishiye aan samaysano hadhow markuu naagtu dhimatana ninkaa iskale dhaqankaa yimaada waxa dhahdaa xoolo naagtu meesha kuma lahayn dhaxalkoo dhan halka mari maya wallaahi islaantu lacag bay lahay iyaa kaa yidhi islaan baa lacag leh ma jirto waxa dhahdo marka waxaas oo dhan waa inaad tawaafuq u jiro sidee lacagta loo xakumay ta ugu dambaysa tawaafuq fi tarbiya ubadka sidaan u rabaynaynaa sacaadada ka qayb gashaa waxaa jira maanta markay ubadku xaafadda joogaan inaan odaygu wuxuu odhanayaa fadhiiso waryaa iyadana war kaa ciyaaran ciyaalku iska daa waa laba iskooleeya waa laba dhaqan oo kala jeeda markaa buu leeyahay markaan ciyaalka la hadlo hadda way joogaan weli markaan ciyaalka la hadlo hayla heldin aniga ayuu ka leeyahay markaa kale markaan baa soo waasha adigu ciyaalkiina waa filim bay daawanayaanba aabbihii hooyo على أي حال وحنا بهناهي عقلي بانو بهناهي عقلي بانو بهناهي ومحي إن استعمالنا وحلا يلاحظوا مركا أن تربية إن دجنب منهج سيدين عيالك وربينا منهج قرها يالنا مركا إسكولك أي تجيان هذا الكينو واحد 10 كرنكتا هذا الكينو واحد هدو من دخل دمو أنا صحو سيدي هو يكوت ريال هدو أبدا سيدو أبا كوي ريال حتى هذا خلتها ريال هدو سكسو النقطة وحتى راسل عيال كلها اللي خلت بهاي لأنه وحي كور جدا منهج كالنبي حقوق ماها سيدا كلا لو باهية عقلي با لو باهية اوكي وانصحينا هذا سواء انا اسكو لهادلو لكن اقلك غديسا سريرتا دخديدا waa lagu sheekaysto ma ciyaal koortiisa tawaafuq fi tarbiya sideen ubadka u rabayna maxaan uga jeednaa ubadkaan sameeyna saway kaanayaan afar daashay maxay keenaan saacade keenaan labada qof hadii isla fahmaan saacada imanayso hadaba waxaan u imanaa waqtiga inagu soo ordaysta taxaw iska deynaa muwaayay wasaa'ishi 10 wasiila inii soo bandhigi 10 ka wasiilo wala beeri kara 12 12 dariiqadood oo inoo keeni kara inaan jeclaano amba inaan isku raaxayno wasiilada koowaad waa maxay ma hiya alwasiilatu alula dariiqa koowaad ee jacaylka keeni kara waa maxay waa inaan fahano ninku muxuu yahay gabadhu waa inay fahanto ninkuna waa inuu fahmo gabadhu maxay tahay marka guriga la joogo ninku waa inuu fahmo gabadhay maxaa tahay oo uu garto gabadhu doorka ay ka ciyaarayso guriga si uu jacaylkiisu u weynaado iyadoo waa inay garato ninku muxuu yahay waxa ajiib ah oday cali dandaawi la dhado waa sheekh weyn reer suuriya ahaa wuxuu ahaa nin calaama oo aqooyahana oo faqiiha oo waxana aad u yaqaana wuxuu yiri waan baaray quraanka waan baaray xadiiska waan baaray dhaqanada wanaagsan waan baaray nolosha bini aadanka waan khibradaydan ururiyay ninku markuu guriga joogo waa sanad waa macna waa sanad buuli gabadhuna waa sakan maxay ka dhantahay waa sanad iyo waa sakan ninku waa tiir buuli
tiir ninku aqalka muxuu yahay dowrkiisu waa maxay waa tiir waa lagu tiirsadaa gabadhuna aqalka maxay ciyaartaa waa lagu nastaa waa lagu xasilaa hadday gabadhu weydo tiir saacado male ninkuna hadduu waayo wuxuu ku nasto saacado ma hayo ilaahay quraankiisa muxuu ku yidhi suuratu ruum wuxuu yidhi wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika laآaayaatin liqowmin yatafakkaruun allah wuxuu yidhi aayadaha ilaahay ku tusaaya inuu waaxid yahay inuu yahay ilaahay musharic kabiira oo xeerdejiyo weyn uu yahay inuu ilaahay yahay mid naxariis badan aayadaha ku tusaya waxaa ka mid a wuxuu inii abuuray ragow haween wuxuu inii abuuray haweenow rag muxuu inigu abuuray litaskunuu ilayha inaad ku xasishaan bilaa inaad isku xasishaan sakanku waa maxay eeg macna sakanka culimmadu waxay dhahdeen saddex shay buu keenaa kow wuxuu keenaa sakan caatifada xasilaysa inta uu qofku xaas lahayn gabadhu inta xaas lahayn inaku intuu xaas lahayn inta labada qofba uu nibakeligi yahay maxaa ka maqan waa la duuraya indhiisa badan kee qabataa halkan baad eegtaa sakan male ma xasilin uu duuraya marka uu hela sakankii xasilo u fadhiisanaya marka taasi waa sakan caatifiya laba waa maxay waa sakan nafsi ah psychologiquement iyuu qofkii degaya qalbigiisii baa soo ururay maskaxdiisii baa soo ururtay naftiisii baa xasilaysa tawaaqnimadii ma jirto waxay ku xasilaysaa guri rag iyo naagaba saddex waa sakan ijtimaaciya qofkan bini aadanka ah wuxuu yeeshay markas ijtimaaciya wuxuu ahaa salibaateer waxay ahayd gabadh keligeed nool muxuu noqday xaas mas-uul buu noqday marka mas-uuliyad baa u biirtay sakan ijtimaaciyu helaya saddexdaa shay buu qur-aanku yidhi litaskunuu ilayha buuli waad ku xasilaysaan si loo xasilo laba shay buu ilaahay sameeyey wajacala baynakum mawaddatan waraxmatan mawaddatan waa kalgacayl raxmatanna waa naxariis ilaahay wuxuu yidhi jacaylku hadduu niga dhammaado amba uu soo naaqusmo maxaa kabaya waa raxmatan naxariistii baa kabaysa imaam xasan albasri wuxuu yidhi iyo qataadiyi waxay dhahdeen waxa weeye mawaddadu waa inta uu jirku is-ururinayo ee la isdoondoonayo naxariistuna waa marka uu jirku hadafkiisii dhammeeyo ee haddeeto caqligu shaqaynayo waxay dhahdeen waa ubadku markay yimaadeen waxay dhahdeen waa marka raxmaddu naxariistu waa goorma waa marka muru'ada loo baahan yahay dadnimada loo baahan yahay waa marka waxay soo baxayso nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa addunyaa mataac balu fiirsada adduunku wuxuu yidhi waa raaxo yar wa khayru mataacihaa raaxadaa waxaa ugu khayr badan gabadh wanaagsan baa ugu khayr badan almar'atu saalixa xadiiska waxaa ku hoos jira waxaa ugu khayr badan nin wanaagsan waa manduuq waa mafhuumkiisa xadiiska nabiga sal laga fahmayo nabigu wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi oo imaam xaakim yidhi waa saxiix arbacun min asacaada afar shay waa raaxo afar shay yaa raaxada laga helaa oo raaxada ka mid a maxaa ka mid a gabadh wanaagsan maaha almar'atu aljamiila gabadh qurux badan maaha gabadha sidata dar qurux badan maaha gabadha sidata maaha amba ninka sita maaha dar qurux badan ninka qurux badan maaha almar'atu asaalixa alrajulu asaalix waa kaa sacaadadu labo almaskanu alwaasic aqalka ballaadhan saddex aljaar asaalix jaarka wanaagsan jaar wanaagsan markaad la geshid waa raaxo afar almarkabu alhaniy buu rasulka sal slam gaadiid raaxale markaa weytado qurux badan oon ku daalinayn afartaa ninka haysta uu raaxaystay buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idan waa inaan fahanno kow maxaan odhanay mafhuumka laga leeyahay guurka in uu yahay in lagu wada noolaado ninow maxaa tahay waxaa tahay tiir aqalka tiir baa u tahay hadduu dumo waa halis gabadhu maxay tahay waxay tahay meeshii lagu xasilayey ee lagu soo ordayay siduu nebigu yeelay sal slam khadiija ayaantii waxay ku soo degeen uu naxay nebigu halkuu ku orday intuu abubakar u sheegin intuu cabaas adeerkii u sheegin intuu abi aalib u iman qofkii ugu horreeyey warka u keenay islaantiisa ahayd khadiija wuxuu yidhi khadiija maanta waxaabaan arkay ilaa wuxuu gaadhay inuu naftiisa uga rawalmo wuxuu baa u tahay hadduu dumo waa halis gabadhu maxay tahay waxay tahay meeshii lagu xasilayey ee lagu soo ordayay siduu nebigu yeelay sal slam khadiija ayaantii waxay ku soo degeen uu naxay nebigu halkuu ku orday
intuu abubakar u sheegin intuu cabbaas adeerkii u sheegin intuu abi aalib u iman qofkii ugu horreeyey warka u keenay islaantiisa ahayd khadiija wuxuu yidhi khadiija maanta waxaa baan arkay ilaa wuxuu gaadhay inuu naftiisa uga rawarmo wuxuu yidhi wallaahi laqad khashiitu calaa nafsi khadiija nafteeda waan u cabsooday cabsi bay hayso yidhi runta u sheegayaa ragnimada nebigu uu lahaa geesinimadiisii maaha waxa uu gunta ka dareemu sheegay wallaahi laqad khashiitu calaa nafsi saasuu ka leeyahay nafteeda waan u cabsooday markaa bay ka leedahay ma adoo kale naftaada u cabsoonaya kama oran ma cabsootay ha dee inamari faaliyaanu tagaynaa waxay ka tiri laa yukhziika allaahu abada ilaahay kuma hoojinayo waxaa tahay nin martida soo sooriya waxaa tahay nin raximka xidhiidhiya waxaa tahay nin agoonta koriya waxaa tahay nin caynkaasa ilaahay weligiina kuma hoolinayo ina mari bay tiri waxaan u tagaynaa nufal waa khabiir wax u tagayso ninkii diinaha yaqaanay in adeerkay ahaa ee islaamka rumaysnaa diinihii hore oo khabiirka ah waxyaaladan oo kale ayaan u tagaynaa khabiirkii u geysay way hor fadhiisatay marka eeg qofka ula tashanayo iyo sal iskula talinayo intaa baan uga jeednaa arrinta labaad waxa weeye ee sacaadada keenaysa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walahunna dumarku waxay xaq u leeyihiin mithlu aladii calayhinna bilmacruuf inta raggu ay xaq u leeyihiin in la mida unbay haweenkuna ay leeyihiin walirijaali calayhinna daraja waan macnayn doonaa darajadaas laakiin waxaan uga jeedaa xuquuqda ninku leeyahay unbay gabadhu leedahay iminka ka soo qaad gabadha waxaa la doonayaa marka ay ninkeyga waxa dhadaa gabadha wanaagsan waa gabadh ninkeyga u labisata iscadaraysa isbukhuurisa aqalka bukhuurisa habeenka romantiig habeenka sii samaysa romantiig habeen romansi ah maaha aqalka markuu ninku soo galo wada tufaax iyo wax ka baxayaan maaha aqal yani markuu ninku soo galo inuu dawakha la doonaya mogtahay wada wallahi waa diyaar bal yahay caawa waa okay waa jamiil jiddan sidaas oo kale waxa loo baahay isagoo dhididkii balazaraambole baa inuu meesha ka galo isaguna waa inuu isagoo isqurxiyey oo nin iska soo dhigay oo isna romantiga oo romansiya oo jirkiisa bukhuur iyo cadarkii raggu ay lahaayeen sameeyey waa inuu yimaado xaqiiqeena aayadda inoo sheegaysa say inoogu sheegaysa ibnu cabbaas ninka la idhaahdo wuxuu ahaa ninka saxaabada qur-aanka tafsiirkeega ugu yaqaana waxaa la yidhi ayaan isaga oo muna jooga xajkii la xajinayo ayuu akhriyey qur-aankuu fasiraya salaadii subax buu bilaabay salaada un baa la tukadaa waa la soo noqdaa ilaa cishaagii uu akhrinayay nin dee raggii taabiciinta ay dhegeysto wuxuu yidhi wallaahi low samica addaylamu hada tafsiir la aslamu reer daylam hadday tafsiirka maqli lahaayeen way islaami lahayen ninkii halkaa gaadhay ayaa maalimaha ka mid a ardaydiisii oo la joogta ayuu kaniifka galay uu soo maydhay uu soo labistay timihii buu hagaajiyey garhkii buu qurxiyey cadar buu isku way fajiceen ardaydiisii waxay dhahdeen sheekh ma adoo sheekhoo geela laguu soo raaco oo adduunkao dhan lagaaga yimaado meel kasta lagaaga yimaado iyaad maaragtay sidaas ku qurxinaysaa ood ishagaajinaysaa oo iska shaqaynaysaa adiga oo ninka la yaqaano ah ma akbaadul-ibil lagu soo korayo wuxuu yidhi wallaahi inii la atazayanu limra'atii kamaa tatazayanu lii buleeg waxaan isku qurxinayaa buu yidhi islaantayda xaaskayga sida iyaduba iskugu kay qurxiso halkeed ka keentay yidhahdeen aayaddan buu akhriyey walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf aayaddaa waxay inoo sheegaysaa matalan waxaa la idhahdaa dumarka waxaa waajib ku ah inay hadday beritoola soomayso beri sunno maaha hadday soomayso amba ay isniin soomayso inay odayga ku tiraahdo beritoola waan soomayaa ila socoyaa lianna hadduu beritoola baahdo waa inuu garto inay salaada sooman tahay sidaas oo kale waxaa ka mid a xadaaradda iyo xadiisku siduu noo sheegayo inuu ninku idhaahdo hadda la soco beri waa khamiiso adna waan soomayaa nebigu ilaahay wuxuu yidhi isagoo ragga la hadlay wuxuu ka yidhi wacaashiruuhunna dumarka isagoo loo dhaqmaa raggaa lala hadlaya wacaashiruuhunna maxaa la yidhi bilmacruuf dumarka markaa la dhaqmaysiin sida shareecaddu ay tiri caqliga nabad qaba uu yidhi nolosha ilbaxnimadu ay doonayso ula dhaqbaa la yidhi hays aadkaynin haddaad wax ku nacdid islaantaada haddaad ka aragtid salbiyaad meelo yaree daciifad ka tahay matala cuntada ka yara fadhida ka soo qaad dumarkii cuntada wada xariifin bay anu garanayaa laakiin ka soo qaad yani xagga cuntada ka fadhidaa ambase matalan soo dhowaynta ka fadhidaa amba waxay ka fadhidaa raaligelinta ka fadhidaa laakiin waxay khatar tahay soo ciyaarka loo barbaariyo waxay khatar tahay sida salaada loo tukado waxay khatar tahay inay wax ku xasuusiyo wax badan bay khatar ku tahay wuxuu leeyahay fa in karihtumuuhunna haddaad nacdaan oo wax ku nacdaan facasa an takrahu shay-an inaad shay nacdaan baa laga yaabaa khayr badanna uu ku jiro xadiis kaluu rasuulku yidhi qofka mu'minka iyo mu'minadda inuu wax walba ku dilin waxaa laga yaabaa hadduu akhlaaq ku naco akhlaaq kale ku raaligelinaysa marka raggaa lala hadlaya halkaa wacaashiruuhunna baa la yidhi
nebigu xadiis wuxuu ku yidhi sal alla alay slam dumarka khayr kula socda khayr maxay ka dhan tahay islaanta khayr kula soco waxaa ka mid a khayrka xuquuqdeeda see waxaa ka mid a khayrka qalbiga raaligeliya waxaa ka mid a khayrka ka farxi waxaa ka mid a khayrka kaado u keeno kaado iyadoo ay jecesha u keeno mid baa beri wuxuu iga sheekeeyey cajiib wuxuu yidhi nin baa ka yimiday baadiyu ka yimiday aqalkiis walaalkii u yimid oo safar oo taqaana safarka ma naqaano safar buu ahaa gurigu yimiday wali walaalkii la fadhiyaa guriga la iska fadhiyaa islaantii baa dhulka yar socota gabadha dhulka yar socota wuxuu ka yiraahdaa xabiibi shaah i soo dhig kani baadiyu wuxuu yiraahdaa sallallahu alayhi wa sallam sidoo saa u waday saa u socotay ninkii reemiga ahaa walaalkii uu safar geliyay baadiyu iska laabay waxa laga yiri waa ninkii walaalka balka waran waa ninkii wallahi billahi nabigu jeclaaday wili xabiibi daamba nabigu ku maqnaa wili sallallahu alayhi wasallam marka dad waxaan nahay dhaqankeena yar adag oo yar baadiyo aan nahay oo qalafa marka waxa loo baahay qalin inaan iska masaxno oo ka tiraadid istawsu bin nisaa baxa leeyri khayran dumarka khayr kula socda nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam rag Allah leeyahay dumar ku soconaay wuxuu rasuulku yiri khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli buri waxa inagu khayr badan kareerkiisa ugu khayr badan kareerkiisa u jajabanay raali galiye anagu waxaan rabnaa ka islaanta shidata ka miskiino madaxa laga haystaayo wallahi madaxa laga haystaayo wa ana khayrukum li ahli buri aniguna waxaan ahay buri ka inagu khayr badan dumarka reerkayga nabigu xadiiska loo ibnu maaji wari wuxuu yiri khiyaarukum linisaa'ikum rago waxa inagu khayr badan kuwa dumarkooga u khayr badan kuwa dumarka raali galiya iyo u khayr badan intaasi waa ragi xadiisku nabigu soo wiciyay dumarka la hadana wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka geel koray waxa ugu khayr badan dumarkii quraysheed khayru nisaa'in rakibna al-ibil salihu nisaa'i quraysh maxay ugu khayr badan yihiin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ahnaahu ala walad ilmahana way korin yaqaanin markuu yar yahay odaygana way ilaalin yaqaanaan ciyaalkana way koriyaan qaar baa jira dumarka ciyaalka marka ka shaqeeyaan wanaga amso ciyaalka jirna ciyaalku ka shaqeeyaan ilaa odagu hinaasaba na horta ciyaalkan ani ma arkaysid buur kaga siiso ana jooge la tawazun ma loo bayay inaan equilibre la budda min التوازن حقوق الدمر كان إلالي حقوق دي عيال كان إلالي حقوق دي كان إلالي أحناه على ولد وأرعاه وإن إلالين بدن يهمبري رسولك صلى الله عليه وسلم دمر كذا خير نسائكم دمر كينا وحا أقو خير بدن الولود دمر كذا المضع يقان الودود جعلك يقانا وذيك أوجه جبن محضوب بانت إيش هو شيء سموت كعنت ما هلس الله يرسل على راسك هذا وأركيا waxa la hadlaya dareenadoo dhan wallahi tan waa khatar buulay almuanisa odayga raali muanisa wehel ka arkayo waliba almuwatiya israacinaysa markuu raado ishiisa eegayso wallahi biyu baahay waa ka biyo kale ايش على هذه waxay koraan waa adoonsiye way qaranayaan oo indhiiso ma la socda waa dictator la isaga waxa laga yiri markaysay waxa laga yiri khayrukum istawsu bin nisaa adna waxa lagu leeyahay almuwatiya waa in la socotiyo marka uu sariirta haduu eego waxa garan tahay sariirtii way fool xun tahay dhag yara fahan haduu adisa ku soo eego waxa garan tahay stop alaaba ka maqan iskiiro noqon kariya tahay haduu ciyaalka eego mid duuf la warko mid arxan leh alaabta la socoya marka almuwatiya nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis kale khayrun nisaa dumar waxa ugu khayr badan man ida absart mid haddaad aragtid tasurruka kuraali gelinaysa markaad aragtid ninku saa oranayo kow wa idaa amart tutiicuk haddaad amartid way ku adeecaysaa kuma oranayso iyaad la hadlaysaa faadimo markaad odaygo hee naya xaliime odayga la hadal gabadhiga la hadlaysaa xaliime lama hadal faadimo la hadlay waa miskiinkii ku jeclaa hadda la socda وتحفظ غيبة مركز مقتهنا نفتي ذي مالكاga iyo ilaalinaysa okay waan fahanay labadna oo wasiirada labaad tii saddexaad waa mirna tii saddexaad waa maxay saadada zawjiga ayag waxaan ku soo noqonaynaa waa rag ah saadada zawjiga waxay u baahan tahay waxa keena nin ba keena ninka saddex sifuulay koow waa nin qawiya waa nin adag waa raganimo leh adayga maaha baashan anu aan mar hore sheekay marka ay saaxiibadu la joogaan rag hadalka badan leh ee sheekeeya
ee furfuran ee gabya ee qosliya markuu albaabka yimaado albaabka raacana gow ka soo waayo waa cali weeyaan waa laga furaa assalaamu calaykum imku qosliya ma garan aqalka laakiin waa yarku matalaya soo socdo kaanu ma jeedo alqawiy waa nin qawi ah markuu qaraarka qaadanayo labo arinta labaad waa nin catuuf ah waa qawi baa waa catuuf waa naxariis waa laba shay soo socdaana luyuunada iyo qawigaas arinta saddexaad ee loo baahan yahay waa maxay waa nin aabanimo iyo zawj jamciya walidaalika wasiiladaas caynkaas ah nabigeena sallallahu alayhi wasallam si uu xalin jiray balka waran nabigeena waxa soo ziyaaratay islaamihiisa kamida aqalkiisii bay matay waxay soo karisay cunto fiican bay soo karisay cunto macaan cuntadii markay keentay halkan bay soo dhigtay nabigay ka tircun oo cunay cunto aqalkii weyn aqalkii caasha fadhida caasha way gubinaysaa waxa waliba aqalkayga cunto u keenaysaa hoos kale way karsamaysaa markaa bay tiri caashana way siisay hoo caasha cun bay tiri markaa caasha intay qaaday wajiga kaga dhifatay islaantii sidii waa dumarka garray waxa moogtay wajiga kaga dhifatay nabigii sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri intuu soo qaaday weelkii islaantii wuxuu yiri wajiga kaga dhifo wajiga kaga dhifatay oo buxuu qoslay qaraarkiina uu qaatay wajigii uu uga jaray walakum fil qisaasi xayaa sawmaha laba uu qoslayna ma oran oo kaalmo galay qosl buu ku dhameeyay caatifana uu sameeyay qaraarna uu qaatay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wax loo baahan yahay inuu ninku labada uriyo ninka labada le dumarku ku raaxaystaan ninka naxariisna leh raganimana leh gabadha ku raaxaysanaysa laakiin ninku hadduu naxariis noqdo dhanbu gabadh ka noqday marka loo baahan ninka caynkaas ah ninku hadduu adayg uu haadana waa dictator isla loo baahno marka waa inuu jamciyo wasiilada afraad ee saacadada keenaysa waa maxay waxa weeyaan labada qof inay dibaateeyaan ay sheekaystaan sheekadana waqti badan ay siiyaan waxa arkaysaa raggu waqti badan waxay siiyaan saaxiibadood dumarkuna kan barkay iska qaadana gabadh bila sheekaysanaysaa wallahi bilaayo waxa la yiri dahabkii uu kacay Dubai baa laga keenay Qaahira waxa la yiri London waxa la yiri wallahi hagbad baan ku jirnaa maanta oo dhan bay ka sheekeynaysaa oo ninkiina wuxuu ka sheekeynaa waxa la yiri reerkii hebel ah waxa ku dhacay waa lagu jajabiyay lacag baan guraynaa ugaaskii baa la sameeynaa ugaaskii la wadaaya waxa uu ka sheekeynaa maanta oo dhan aqalkiisa uu yimaadana الرجل الصامت وامسيا وروح عنكم عيالكي بيل بو بهين بريتو انا جاك وقري waxa buka cali dhakhtarkii Britain ana ku raabay ku sheegay ugu dhakhtarkii hebel insha Allah baaka u dhameeyo iyana nakale wax ma ku weydiinaa hada hadal badida adu ma ka shaqada shaqada dumarka waxa ma xiwaar baa loo baahay in la debaateeyo in la isla fadhiisto oo la sheekaysto ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala hadii la doonayo in la kala tago islaamku yagu yiri laba qof baa isnacday waa isnaceen waa bini'aadam ma maxay u kala tagayaan bilaadi فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما هذا doonay kala socdaan iyagoo iska raaliyo oo tashaday way kala socon karaan ilmaha marka laga goynayo naaska quraanku wuxuu ilaahay ka goyninoon fitaamka horta tashada islaantii odayga sheekaystaan ilmihii 9 bilood buu naaska cabay wallahi nin buu noqday ma ka joojinaa ya akhi waxa ila tahay bil ugu dar ma ay ka jooji waa laga tashanaya laakiin marka uu 3 bilood oo intay siiso oo tiraadon horta moogi mina oo goor ka joojisay ilmo suusiris baan aqoon wallahi billah waa ka xumahay waxa soo gal ha ku noqon hadeeta ya waa khala dhawaatay ايش على حلول يا هذه marka sheeka loo baahay sheeka joogta ah oo problem laga sheekaysto nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska in sheegay nabigu wuxuu la tashan jiray islaantiisa Khadiija waaniga in sheegay ilaa iyo wuxuu kala tashaday wixii ugu yaraa iyo wixii ugu weyn ayuu ka tashaday ayaanta problem kriiskii politiga ugu weyn nabiga qabsan ma qashan ilaa nabigu madaxweynuhu ahay kriis politiga qabsada wuxuu amar buu bixiyay sulhul hudaybiya wuxuu soo taagay amar bixiyay wuxuu ayuha naas ma galayno meeshii waan laameynaa xoolaha gowraca halkan ma ku taxaluleynaa amar buu bixiyay saxaabadii oo dhan midna u dhaqaaqi waay amarkiisa la qaadan waa markii ugu horreeyay amarkiisa la qaadan waayo uu yaabay uu murugooday dadkii jecel amarkiisa ma qaadan aqalkii buu ku laamay meeshii rad buu galay islaantiisu gari saxaabadii maanta way diideen inay xoolihii qalaan ay taxalulaan way iska diideen waxay tiri yaa rasuulallah dadku wax dhibaato haysata markay ku socdeen guul bay doonayeen way sadma haysta dhibaato haysata ay wanaag aqli badan leh waxay tiri soco adigu gowrac adigu doox oo qal markay ku arkaan adigu gowracaya way ku dayanayaan oo adigu raacayaan oo socday oo gowracay saxaabadii way wada gowraceen muqarrad ku daydeen iyaa ka saaray nabiga kriiska islaansa ka saartay adigana waxaad ku leedahay islaamaha lama tashado wala islaamuna waxay leeyihiin odaygaaga
waxaan baa la dhahaa xun baa loo sheegaa wax kale baa looga sheegaa hiblaayo maarata odaygayga gaari buu iibshay wallahi aqalkii iyadoo ku qoray ma maqashay dadka way u soo duuraysaa buuta aqalkii weynaa u dhisay iyadoo ku qoray wallahi saaxiibka wallahi ma ku qoray way soo duuraysaa ma maqashaa waxay sameeyeen qolaasi maaha waxa loo baahno saxaabadii way wada gooreen ma qortay ku daydeen iyaa ka saaray nabiga kriiska islaantiisa ka saartay adigana waxaad ku leedahay islaamaha lama tashado wala islaamuna waxay leeyihiin odaygaaga waxaan baa la dhahaa xun baa loo sheegaa wax kale baa looga sheegaa hiblaayo maarata odaygayga gaari buu iibshay wallahi aqalkii iyadoo ku qoray ma maqashay dadka way u soo duuraysaa buuta aqalkii weynaa u dhisay iyadoo ku qoray wallahi saaxiibka wallahi ma ku qoray way soo duuraysaa ma maqashaa waxay sameeyeen qolaasi maaha waxa loo baahno waa in direct loo sheekaysto xiwaar mutabaadil waxay keentaa raaxada ma ka soo baa wasiilo khatar oo soo waa muwaajah khatar kiishanaad wasiiladan khatarka waxa weeyaan waa alxub alcamiiq almutabadil waa inuu jiro wasiiladan waa wasiilada dhexdaan dhigay waa jacayl inuu jiro dheer oo laakiin la iswadaasanayo hadduu mid uu jecel yahay ka kalena uu nacayo waa mushkilad sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam islaam nin adoon ahayo la fadhin jiray yaa gabar jeclaaday gabadhu aad u jecel yahay oo ka daba dhacay gabadhii uu yeeray kaali oo keenay odaygani ninkan uu ku jecel yahay wallahi guurso ay tiri waxa ka tayaa rasuulullah ma amar ba mise waa talay tiri wuxuu yiri waa talo wuxuu yiri waxay tiri ma guursanayo anu ma jeceli markaa buu isaguna si eegay uu daba orday wuxuu yiri ma arkaysi sidoo u jecel yahay iyo se u nacayso markaa taas waa cadaab nooca anu ma jeceli mid waa waliba marka la isla nooleen waa sax laakiin aqal la wada joogo midna jacayl ka xiyahay midna uu la socon bayna la jecel yahay gabadhii oo odaygayga saanu daawanaysa alla macaana kan ilahays oo isaguna warba weyn oo iska soo galay oo iska baxay oo xaqan uu qaadanayo wala amba ninkii oo gabadhaba ku maqano ay gabadhuna warba weyn ciyaarka xarka beenaysay si socdo kuushka u galiyo halkanoo isagii waa in la isla socdo su'aasha waxa ka jawaabayna si aan jacaylka uga hadalo jacaylo maxaa tahay horta aniga jacaylku uu wareeriyay ma tahay marka jacaylka aniga sheegay wuxuu yahay jacaylka waxay yiraahdeen culimadu laysa iddi'aan kaadiban jacaylku maaha sheegasho beena qaar baa markay isla joogan dadka la joogan sheegi sawa kaayde marka la baxana ya faadimo ka waa khayal hada iddi'aan kaadib waana la dadcan ka saaran badan jacaylku maaha filin la sameeyo sinimo maaha caawa waxaan tagaynaa kambiskiya ka soo qadanaynahay si dadku noo arkaan soo fadhiyo sawa ka fuleer la shido waa film bal mataliya qofka dabro wallahi hiblaayo kambiski bi ka cashayaan ويسرعان فعين والله كل لو يسرعان لا عرتي وبحانو بوركس يسرعانو وفيلم ماها فيلم عكاس جعلكم وكمل وصل شيء دون جعلكم ماها عاطفة زمنية إلى كل أنت سودا وتمحاضرة هي فيلم هي بوجي الأخير أو سألت كذا يا كاري فلان رسول بيشتو هكذا كويس فلان بريستو الله سبحانه يا حفاظهم ولا قد غيرها ويش بدي شو ماها عاطفة زمنية جعلكم ماها استجابة لمطالب جسدية إن لو جواب جرك أون مركز درتيد نفط الضغط وضيقه إنه كرال الجليو سريرته ضد باجي سريرته جعلكم والسماء وياهي مركز سريرته لما تنا سيك الجستا جعلكم ومحضر أنت أصلا جعل معه وهو وحل السمية جعلك حقيقي وحويان وشعور راسخ جعلكم ومحي وشعور ودران كنتو جوغا وعميق الجذور حيدضر الإحفادها جعل كاسي وعمر ديريها نبينا يقول صلى الله عليه وسلم حديث كإمام مسلم ورنيو إني خديجك الله يا إني رزقت حبها بوري إلهي وحي يقول أرزاقي بوري جعلك خديجة وبلغوا أرزاقي بقى سوقفكم ما يرتده نل عقبضا ولك إلهي وأرزاق نل عافمان إلهي وأرزاق جعلكم هو رزق وحي رسولك إني رزقت وحال يقول أرزاقي بوري حبها جعلك وعجيب جعلكم مركا waan ku soconaa ma baaliyo wadi markuu sayahay maxaa u daliila xadiiska caasha warinaysa ugu fiirsada waxay tiri jaa'ad ajuzun ila nabiy nabiga duqba oo imatay duq wa huwa indi isagoo aqalkayga fadhiistaan duqa ayaa u imatay markaa buu rasuulku albaabkii bay garaacday man anti buuri waxay tiri ana jathamatun anu waxaan ahay bay tiri islaantii doqon tahay jathamadu waa albalida doqontii baan ahay bay tiri
markaa buu rasuulku yidhi bal anti xasaanatun tii quruxda badnayd geesiyadaa tahay kayfa antum buu yidhi sidee tihiin kayfa kuntum bacdana annaka dabaday seed noqoteen xaaladiinnii ka warram waa reer u yaqaanay markaa bay tihi bikhayr biabii anta wa ummii yaa rasuula allah hooyada iyo aabbahay baan kugu fideeye waan khayr qabnaa bay tihi markaabay iska socotay caasha walinaysa falamaa kharajat markay baxday islaantii duqdii qaalat caaisha waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow islaantan duqda ah eed sidaa u soo dhawaynaysid maxay tahay ee cajiibkeed kayfa kuntum kayfa antum tahaysid ee la dawaqday maxay tahay tiri muxuu yidhi rasuulku fiirso innahaa kaanat ta'tiina zamana khadiija jacaylka u fiirsada jacaylkaa weli ma arag meel adduunka aan ka akhriyey waxay noo iman jirtay buu yidhi ayaamihii khadiija khadiijuu nabigu xasuusanayaa khadiija waa ayo khadiija waa markay caasha ka tiri yaa rasuula allah waxaa hadal haysaa oon islaam duqa oo ilaahay kuugu bedelay mid kaaga khayr badan anaad haysataaye duqda iska daabay tira iska ilow rasuulku wuxuu yidhi iigama bedelin ilaahay mid khayr badan u ammaanay waxa ahayd oo dhan buu ka sheegay marka wuxuu yidhi khadiija ayaamihii khadiija markaa waxbaa jiray maxaa jiray nebigu lamaba guursanba khadiija ilaa uu yidhi sheekh la dhaa faysal molowi oo faqiiha walow caashat macahu lama tazawaja macaha hadday la sii noolaan lahayd lama uu guursadeen ilaahay baa laakiinse dooray lama uu guursadeen xubbiga uu khadiijo u hayay markaa rasuulku sal allahu alay wasalam kaanat ta'tiina zamana khadiija buuri xubbiga xaqiiqiga u ka yimaadaa walaalayaal qalbigu ka yimaadaa xubbiga xaqiiqiga ah waa kii aan ka sheekeeye nebigu caasho ka yidhi markaad cadhaysan tahayna waan gartaa markaad faraxsan tahayna waan gartaa xubbiga xaqiiqiga waxa weeyaan waa biyo lagu shido dabkaa lagu shubaa markaa dabka baktiyaa iminka laba qof baa iskhilaafi jacaylka ka dhexeeya aada u weyn guntuu joogaa way iskhilaafeen meel xun bay gaadheen marka uu qaal ka buxuu xawsanayaa jacaylku hay intuu leeyahay innii rusuqtu bixubbiha innahaa ta'tiina zamana khadiija war ma gabadha zaynab yaad ka tagi yaa ka tagi iska hayso iyadna waxay odhanaysaa war cali baa layloobi karaa wasiilada lixaad muwaayaaga lixaad dariiqa lixaad waa maxay waxa weeyaan tacaamulun raaqiyun xadaariyun bayna shariikayn labada qof ee wada nool marka ay dhaqmayaan si ilbaxnimo waa inay wada dhaqmaan diinta soo inaga tiri si ilbaxnimo sidee wada dhaqmayaan si ilbaxnimo maxay ka dhigan tahay waa cajiib tanaaba yaab leh si ilbaxnimo ma si waxa jirta baduunimo haasi baduunimo jirta waxa ka mid ah ilbaxnimada in cuntada la wada cuno odayga iyo xaaskiisu waa inay cuntada wada cunaan markay cuntada wada cunayaan waliba waa inay cuntada isa siiyaan ilbaxnimada ka mid tahay ma aha dhaqanka gaalada ya waa xadiis nabiga sameeyay kaleey salaatu wasalaam xadiiska muxuu leeyahay waa xadiis saxiix ah wuxuu yiri nabigu wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqa nabigu wuxuu yiri hadaad bixisid nafaqad miskiin siisid ciyaalkaaga siisid qaraabo siisid ilaahay sadaqa ku qoraya waxaad bixisid ba sadaqa lagu qoraya nafaqa ka soo bixisid hatta luqma hatta waslada hilibka tarfacuha oo sar u qaadid ila fi imra'atika afka islaantaada aad gelisid luqmadii ba soo qaadaysaa islaanta afu gelinaysaa haday ku arkaan dadka dibadda ka yimid war galgal buu iska dhigayaa yoorne muxuu sameeyaa si Faransiiska weel baxay laakiin waxa ka fiican tahay ciyaalka tarbiyasmaya waxay arkayaan aabahoodu hooyada afka cunto ugu ridaya markaa warna aabo wallahi hooyo jecel yahay wallahi jecel yahay markaa hooyadii oqsinaysa wallahi hooyo aabo way ka heshaa ya subhanallah way ku korayaan waxa tarbiya sawiya waxa taas waa mid labo tacaamulka xadaariga waxa kamida in la isla safro la israaco namari haga tagna labadiino xadiis weeyaan nabigu maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix weeyaan bukhari muslim baa wariyay kana rasuulullaahi rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam wa macallinkiina wuxuu nabarayo waxaan moodnaa inuu salaatuleelka nabarayo iyo quraanka waxa ma quraatay حتى نلش الراحة ونبريا كان رسول الله إذا أراد سفرا هدو دون إنه بحط قال سفر عادي هدو بحيو أقرع بين أزواجه دمر كيسو ورقح توري سقال كي دمر ورقح توري فأيتهن خرج سهمها خرج رسول قولي كو أصبحوا سهميجيبو قريتورك كو أصبحوا إيا النبي خرج بها رسول الله يدو رسولك قادني صلى الله عليه وسلم وأكيد قاتب عاشا إيك روتيك سلوجبي عاشا راعدي dagaal baa la galay waa la soo laamay markuu jeeshku soo laamay way la socotaa caasha waa qisad cajiiba marka uu soo laamay maxaa dhacay wax cajiiba dhacay
nebigu wuxuu yidhi ciidankii war socda hore u socda way socdeen way dheeraadeen caashay wuxuu jebinaya rootiinkii kaale han baratanay buuri labadiinuma baratamin hay kaale baratan bay tir waa la baratamin gow way ka badiyeen yar caasha way ka siibatay markaa bay iska ilowday dagaal kale hadan rasuulku safarka lu baxay way yarana xad caasha dumarku marka la guurso way yarana qaarkood kulligooga maaya in baan naxda marka waa la orday hadana si uu sameeyay nabiga ka badiyay sallallahu alayhi wasallam iska ilowday rootinku jibinaya noloshu macaan ka dhigaya way ordeen islaantii soo ordeen nabigu ajiib islaantii soo qabiil ordaya annaka hadaa tiraadeen sheekh hadaa mesela sheekh ani magacayga ma sheegay sheekh kale oo fiican oo taqaan sheekh Abdullah sheekh weyn haduu dariiqa la maray islaantiisa waxay oranayaan hey sheekh islaantu la socday wala yahay la sama waxa kamida التعامل الحضاري البحنimada xadaariga ee keenaysa nolol fiican oo zawjiga saacada zawjiga waxa kamida inuu qofku marka uu inaanad islaanta gaadgaadin rag ba islaanta gaadgaada horta bakuira qabaya waan kugu qabtay badonida taasina nabigu wuxuu yiri adamul mufaaja'ati inda al-auda islaantaada hadaa ka soo noqdo safar habeen hayska iman aqalka nabigu ma iman jirin imika waa la bedilay waa la iman karaa imika laakiin nisheeda soo imanay ambase iskama imanayno hakada iskama soo go kuma qabanayno islaantii oo diyaar hayno isdhex taalo oo uma imanayno nabiga xadiiska saxiixa wuxuu yiri Anas bayri kana an-nabiy nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la yadruqu ahlihi layla aqalkiisa iyo gurigiisa habeen safar uu ka soo laamay ma imanayno muxuuna wa kana la yadkhulu illa ghadwatan aw 'ashiyatan waaga hore amba galabta dambe waqti rafiican ayuu guriga imanay صحيح وعودي أنس بايري كان النبي نبيين صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا أقل كيسة يقولي صحابين سفر وكسر الله ما يمنين محونا وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية واجهره أم بقربت الدم وقت رفيعا أيو قولي إيماني وأنا لسي أغاني مسكيت كورت إيماني نبي يوصل قلي والله الشيكيني ما كان دمك زهرني أقل كنت قدنا مكي محل وجه ده إمي كذا الحمد لله تليفون باجرة internet baa jira waan soo socdaa waa imanaya waxa imanaya labada sheefiye waa soo dhawahay insha Allah wala socdaa laakiin iyadoo masdhex taalo bal waa tii fofog yaraahide tan kaga siyaada tiraadi taasi diinteenu ma ogolo maaha arinta afraad ee kamida uun ilbaxnimada kamida si loo isku dhaqmo waxa kamida inaad isku daydid inaad odagaaga israacisid islaantuna ninkuna inuu israaciyo مثلا waxay jeceshahay waxyaalo jeceshahay waxyaalo ay jeceshahay sharciyada kama hor imanayso raaxa raali gali qalbigeyga adiga wasta odagaagu waxbu ka helaa sharciyada kama hor imanayso raaxa raali gali halkeen ka keenana xadiis baa inoo sheegaya wa kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan sahla nabigu wuxuu ahaa wuri nin fudud waxa jira nin naxariis badan raganimo badan buu ahaa ida hawiyat shay'an haday aasha wax jeclaato taabacaha alayhi uu raaci jiray aasha haday tiraahdo sidaas baan doonaya oo waxa uu fiican yahay uu la raaci jiray uu la sameyn jiray uu la wadi jiray xadiiskaasina waa kaas wasiilada toddobaad waxa weeyaan السعاده الزوجيه ومحا كانيا الرحمه المتبادله حب متبادله جرمه waxa loo baahan naxariis la isku darsado odayga miskiinka madaxa isagoo xanuunayo soo galay wuxuu madaxa xanuunaya marka aan baa tira madaxa xanuunaya maaha waa inaad tiraado madaxa ku xanuunaya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dhaqdhaqaaqaas meeshii hadaa isagoo madaxa xanuunado le way madaxa ku xanuunaya qalbiga qabo dadkeen waxa ma yaqaanaan islaanta la isku jirciyo madaxa ku xunaa cunde barstmal dhakhtarkan weeydi barito la khalaas maaha maxay nabi sallallahu alayhi wasallam soo galo waxa isaga waa ra'sa aashole isna wuxuu bal ana waa ra'sa ana madaxay xunay wa tawaafuq wala suwaafajinaya walidalika iyada culimadu waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma markuu ilaahay jacayl iyo naxariis buu dhexdiina dhigay marka uu yiri min arrahmati waxa kamida al-ihsas bi mushkilat al-akhar qofka kale mushkilaadkiisa ina dareentid hatta marka uu ku sheegan dareen rahmada kamid tahay waan hore u soconaa wasiilada sideedaad mooyaga sideedaad waa maxay waa at-tajammul
وإن هذه يجار لسقرحيه والاستمتاع لسكون الراحيستو حرام ما موانياga keenaya raaxada kamid in la isku raaxaysto hagee la iska raaxaysanaya waa inay indhuhu raaxaystaan waa inay dhaguhu raaxaystaan waa inuu sanku raaxaysto waa inuu carabku raaxaysto waa inuu qalbigu raaxaysto waa inay gacantu raaxaysato waa inay dareenadu raaxaystaan waa inuu bi'adu environment waa inuu raaxaysto wax oo dhan waa inay raaxaystaan raaxada ma ka waramayna eeg ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala quraankiisa isagoo anaka nala hadlaya wuxuu inaga yiri yaa bani aadam baana imsa xayawaan bani aadam baana ma khudu zinatakum quruxdina qaatabuul inda kulli masjid markaad masaajidka joogtaan quruxdina qaata qofka muslimka inuu qurux badnaado inna allaha jamiil rasuulka yuhibbu aljamal ilaahi uu qurux badan yahay wuxuuna jecel yahay quruxdu jecel yahay nabigu waa kiila khayrun nisaa dumar waxa ugu khayr badan qofka aad aragtid ee ku raali galiya bara ibn asim wuxuu yiri nabigeena soo ka sheekeynaya كان النبي مربوعا نبي وحوها صلى الله عليه وسلم ننتاج شفيعا او قربيس واي كلفدين يجين ايوها وحو لها تيمو انو مسكين بنا بناتمان ما سو تيمو لها يا تيمو لها دغها غاريا وحان اركي رايته وحان اركي في حله حمراء سو ستا درعس حله حمراء ستا لم ارى شيئا قد ولي ما ارق بوري وحكا قروح بدن nabiga wax ka qurux badan ma dharka markuu isku qaatay iyo suu u qurux badnaa wax ka qurux badan marag markuu nabiga saa u qurux badani oo dumarkiisa u soo galo maxaa ku dhici jiray dumarkiisa way dawqayeen ay dhoofayeen sallallahu alayhi wasallam sallu ala nabiga salliya aasha waxay tiri kuntu utayibu nabiga waan udgoonin jiray markuu xarmanayo waan udgoonin jiray waxaan ku udgoonin jiray bi adyaba ma ajid waxa udgoonka aqalkiga yaala ka ugu qurux ugu udgoon iyaan u marin jiray tiri nabiga kaleey salaam nabigu muxuu yiri adduunka waxaan ugu jecelahay dumarka iyo waxaan ugu jecelahay is udgooninta u udgoona sanku udgoonaya wajigiisa waa arkaysa quruxda ku taala dharku sideenay way qurux badan tahay bi'adii way qurux badan tahay wuxuu yiri salaadana waxa laga dhigay indha ku xusheeda laga dhigay nabigu kaleey salaam qofka muslimkii aqalka sidoo uga dhigi raaxo waa su'aal cajiiba sideen raaxo uga dhignaa كو horta waxaan raaca ka dhiganaa labada qof marka ay doonayaan inay isla yar ciyaaraan dadkeenu wala shir qaadama wala shir waxa iska deynaa waa duca la akhriya jawiga ruuxi laga dhigaa hadii la doono salaatulil baa la tukadaa waa ajiib salaatulil wala salaatu tukan karaya mootay quraan baa la isla akhrin karaya suurad baa la isla akhriya tabaarak ida waqa'at alwaqi'a wa suurad ajiib mootay waxaan dooranayo wala isla akhriya hadii la doono waxa la akhriya suuratu ruum wala isla akhriya wala isfahansiya bad baa la galaa marka badda la galay laga soo dhaadhaco iyaa la bilaabaa in uu qofka muslimkii uu baabi'iyo wax wal oo keensanaya qofka kale inuu ka fogeeyo arinta saddexaad ee istimtaaca keenaysa waxa kamid ah al-isti'naas bis-suhba in muddo la isla fadhiyo sariirta dusheeda saalooga maqsin yar oo kale haduu teeraas jira teeraaska macal dayixiyo jira dayax maartay dayixiyo 15 hoos fadhiiso kugu soo baxaya ajiib baad waa suurad qurux badan halka la fadhiisto gogol la dhigto la sheekaysto istinaad bi suhba al-mudaa'aba la wada ciyaaro la sirida caydeeyo wallahi bariga ciyaarka la sira mudaa'aba al-mudahaka la iskiru qusliyo ma haytire eeg xadiiska ru fiirsada aasha radiyallahu anha waxay tiri kuntu ashrabu wa an'abi bitri wa hadith sahih ya imam muslim warinaya kuntu ashrabu wa an'abi بيان عبيا وأنا حائض أنا تضباطي كجرة إيان بيها عبيا ثم أناوله به يعبكي إيان النبي أديبيا صلى الله عليه وسلم فيضع أوديا فاه أفكيسا هقول دقيا موضع فيا أفكي ماشي عن دقيا ودقيا دقيا لما دقيا ميكروب بلاد هاي ماله دقيا بلاد هاي صوعي وجبته ماله دقيا أفكر دقيا ودقيا وجعله حتصيو فيشرب هلكي وكعبيا النبي عليه الصلاة والسلام marka waxa loo baahan yahay in mulaatafa la sameeyo waa wasiiladaas waxa kale oo kamid ah al muqaraba in jirka la isku dhaweeyo jirku haduu istaataabto waa macaan yahay laana waa jirkan uu isleeyahay ma aha jirkii xaraantaha xadiiska caasha u fiirsa eeg waxay tir caasha kharajna waan baxnay ma'a rasuulillahi rasuulka ilaahi baan la baxnay sallallahu alayhi wasallam fi ba'd asfarihi safaradiisa qaarkii baan la baxnay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu nabigu caasha دبتيدي بو فجاء أبو بكر بيمدي وأبهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهيو واضع رأسه مدحي سيدغي على فقدي تفتيدا دعسك هرد ثم نام هرد اسك السحر ودوادي
markaabuu la diriraya abubakar caasho uu leeyahay dadkii dib u dhigtay nebigii baad mashquulisay uu arkaya in nebigii mashquulisay laan nebigu uu jecel yahay hawadeedu raacay marka qaarkood sala allahu calayhi wasalam marka taasina waa maxay waa wasiilo faa'iido badan keenaysa wasiilada waxaa ka mid a in islaanta iyo odaygu xataa ciyaalku iska arkaya inay isdhukadaan maaha inay dhukashadii khatarta galaan maaha inuu yaro dhukado islaantiisa iyadna ay dhukato dadku waa arkaya xataa alwasiilatu taasica wasiilada sagaalaad waan soo dhammaynaa haddeeto saacaddiina waxaan malnaa way sibatay muwaanyaaga sagaalaad waxa weeyaan ay sacaadada keenaya waa tacaawun waa inay labada qof isgargaaraan inay isdaawadaan maaha ninku hadduu reerkiisa ka shaqaynayo oo uu garab caraabayo oo islaantuna ay wax taqaano inay aqalka wax ku soo biiriso hadday islaantu wax ka gaarayso waa in la isgargaaro gargaarku ninba dhaka ka maqan qofka kale inuu qabto uu istaago ayaa loo baahan yahay way keentaa markaas caasha waxay tiri su'ilat caaisha la weydiiyey nebigu markuu aqalka joogo muxuu samaynayaa ma kaana yasnacu nabiyu fii beytihi baa qaalad waxay tiri kaana fii mihnati ahlihi reerkuu wax u qabanayey mihnati ahlihi islaantu waxay haysamayna inta kale u qabanayey waxaa kaloo ay tiri dharkuu tulanayey dharkiisuu tutuli jiray waxay tiri kabiisuu hagaajinay yaqsifuna calay kabiisuu hagaajisan jiray haddii salaada la xaadirana uu boodayey markay soo xaadirto la idaamo qad qaamat isalaa uu boodayey si aan aqoon isna aan aqoon uu iska socon miskiisku tagay iyo tiri Aisha idan halka maxaa ku jira in ka shaqeyso xadiis kale islaantii asma bintu abi bakr ee zubayr uu qabay ibn umar radiyallahu anha maxalli waxay gargaari jirtay odaygiga nolosha caadiga ayuu gaari jirtay bal khadiija nolosha gaar fiqiyana waxa ku qoran hadduu odaygu mucsir yahay oo waxba haysan islaantu nafaqadii ma bixin aqalka waxay dhahan culimadu tucaawinuhu fi nafaqati aqalka masruufkiisa way gargaari meeshana kala furno oranayso waxaan way ka fadhiisatay oo shaqo tagaysid oo shaqo tagay uu la soo waaydi oo ku dhiftay oo la soo waayay way la qabanaysaa noloshade marka tacaawunka isna uu la qabanaya saacadada keenta wallahi islaamtu nolosha kula haysa wallahi ninku nolosha kula haya saacadada keena maasatihi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال قالوا وتجعل فيها رجال لا تلهيهم تجارة